horena u gashay iska keenkeenaya inaysan ahayn iyo faan meesha 62 nin baa ku dhimatay oo 12 sargaal ku jiro oo taliyo ururku ku jiro marka waxa weeye ilaahay baa noo dambi dhaafahaya idaacadda ama ninkaga sheega hadee intii kanaaca wasiirku kanaacadu waa qabiilka waxaan ka wadeeyay caayida reebel baa saasado inta dhiman lahayd jannada ku jidha inta 2 kiiloomitir imaada waxaan dadka u sheegay intaas ay ahayd haddana waa ku sii xoojinayaa jeeda ciidanka ishaada macallin ah 600 nin baa halkan diyaar ah mar haddii culumadii kitaabka noo sida ay furuntii fadhido qofka harada waa ahlunaar annagu janno ma geyn karno qof cadaabkii u socda qof jannadii u socdana cadaab lagu celin karo mar haddii culumadayadii taagan tahay wax noo haray annaga ma jiraan bay la tahay wasir inaan diyaar bi u yihiin dagaal diyaar bi u yihiin qawaarish in la diraan diyaar u yihiin hadda goobaha joogna madaxyada qawaarish madaxyada ku xawaalan goobaha fadhino qawaarish madaxyada aan ka soo gurray ku xawaalan meel kaas ku xawaalan yihiin meel kaas ay joogan diyaar uuna dagaal waa u taagan yihiin afalaasa dagaal u taagan yihiin deegaanka ilmaha deegaanka oo yana aad halkan wax looga hawlgala aad u muhiimsan oo lambarkood noo ah deegaanka la yiraahdo halkan baa looga hawlgala oo ciidamada kala duwan la hawlgala aad u mahadsan yihiin ciidankaasna wasir halkan waxa taala 32 gaari oo technical halkan taala hadii la yiraahdo subax saaka ay xardheeraha la qabto wasir diyaar u yihiin meel ka soo jooga diyaar laga hawlgalo wasir diyaar u yihiin dawladda Ameerika meesha ku joogan ayay sugayaan ciidana waxa loo yimid wasiirda intaan kamid ahaa maanta loo soo wacay maanta nin Yurub iyo Ameerika yimid nalama keenin inta saaxiib loo cid kasta waa taqaana ninkan gobol yaa taqaan Soomaaliya ciidanow dadka dagaalka soo galay oo dad kala oo qabiilada kala anu waa ku faraxsanaa ka naximano hadalena yiraahdana ka naxayn markay kaliya dagaal ku jirnay hadii marka abgal soo galay waxa wala soo galay oo marso soo galay dubla soo galay oo intaas galmudug ay yihiin oo Hirshabelle ay yihiin maanta anu waxa loo dhibsamayno waxaan ugu dhibsanayn anoo kaligana meesha taagneen oo hadalka waxa loo ku hadleen hadal gudoomiyaha ku hadleen hadal talaash ku hadleen canaantayna anu waa ku faraxsanaa markay ay joogin baa ku jirnay haddana dagaalkiis meesha ugu jirnaa ma moogin oo inta dagaalka galna meelashay ahayd ayagana ka naxmayna maanta ma lihin maxaa noola hadasheen markay intaas waxaan u taagneen oo u sameynay haddii cadowgan cadow u helnay saakay horaggan laga helnay haddana diyaar baan inaan galno gudoomiyaha gobolka mudug Axmed Xuseen Shire Buqaari ayaa uga mahad celiyay ciidamada daraawiishta galmudug iyo kuwa deegaanka samirka iyo adkaysimaha muddada ay kula sugnaayeen degmadan iyo deegaanada hoos yimaada gobolkan mudug difaacay sharafta u soo hooyay ilaahay subxaanahu wa ta'aala uu karaameeyay ayaga oo ay rabaan cadowgu inay duleeyaan oo ay rabaan gabdhaha iyaga iyo dadka iyaga iyo culimada iyada inay ahaaneystaan raggan waa rag ilaahay yadooda uu karaameeyay subxaanahu wa ta'aala waxaan ognahay inay duruufo kala duwan ay ku soo shaqeeyeen waqti adag oo shabaab aan la diidi karin inay diideen waqti aad iyo aad u adag oo shabaab qof ka hor imaan kara uu jirin ayay ka hor yimaadeen aniga waxaan rabaa inaan kula dardaarmo taqwada ilaahay ayaan ku guuleysan karnaa salaada inaan tukanaa